السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سودوا صاحبي كنا سودوا هذا كنال كينا أمير تاج سيدك صارتي عوانك تيتلك يوتيوب إن شاء الله ما تمون قال كان وحوق ساب سي هاي شنارنو كوسها ليسو لغة إنجليش إن برتو أما إن عاد يعني لغة ربطو عاد برتو عشان تعرف ده سميسو لغة ضلبة ربطو برنيسا هذا بنت أنا عايش جود جيل فضلنا ديت المكرسة كان كسب وقتي مكورة المقال كان يعني عاد كان أركز مقدت هاي إن تسبسكرايب تسارته قبل كان إن فرطه سيو كوسو جارو فيديو والبوين هالكسو جلنا أذب ما سنتهاي هذا مركز عن شنتين نقطة أن جودبنو أنا جو سوق عن مركز قذب كوات كو speak بدن سماه speak لقد كو هذا ما ترى النقاط كو هذا شا sababtoo ah hadii aad yani aad luqada aad ku hadhal weydo inta wax soo qortoon aad iska akhristo markaas aad iska adigu wax uun aad kaliya ku hadhid noqoto marka luqad si fudud ku baranaysid waa inaad ma aragtay meelaha luqada laga hadlayo aad tagtaa oo aad luqada aad ku hadashaa si yani markaas hadii aad in yar khalad gasho khaladkii laga qabto dadkan aad kula hadashaa markaas waxay ku soo tukinaysaa markaas hadii in yar oo khalad dad gasho in aan markaas uu qof aad waxa leeyahay inuu ka socdo sidaas ma aha waa sidan ay dhahaysaa markaas waxay ku noqotay markaas si fudud aad yani ku barto hadii aad yani barafadii waxaas aad ku jirto ama iskuul aad ka baranayso waana speaking yani way jiraan barafada way ku hadlaan wada sheekaysi conversation ka soo jeedi la aragtay conversation marka waa inaad sameysaa markaas speaking yani marka xilli kasta aad luqadaad ku hadashaa يعني أو أف صومالي قاعد سكديسو أفكا كواليس وين سكديسو أفكا كواليس وين سكديسو إري والبا وين القرطو يعني نواد هذا إريغان سداس بان سمينيا وين سكدينيا هذا بلاو إريغان استعماليا وكو هاليا يعني وفضلادو هذا طلع هذا نقدمنو طلبات واتو آذي أدمي مهم تاعي وين تو وكم كرامركا سفي عن ha u baranin arintan si fiican ayay waynatan aad muhiim tahay sababtoo ah dad badan waxa arkaysaa raba inay luqad English ka bartaan oo hadana grammarka xooga saarayo si yani grammarka markay wadaan hadana markaas ay Ingiriiska ka cadisaan marka grammarka ay xooga saarin kaliya grammarka markaas yani ma ahan in aad yani aad barato oo aad xooga saarto grammarka waa naxwaha Ingiriiskiisa marka inaad xooga saarto oo aad barato markaas ma fiicno sababtoo ah yani intaad kalba aad leedahay aad baratid halkaas waqtiga ka lumaayo marka waxa laga rabaa markaas ka soo qaado qalad ma artay ilmaha yarka markuu af Soomaaliga baranayo ama uu yar yahay grammar iyo waxaas iyo qoridiisa Ingiriiska iyo waxaas iyo sameeyo kaliya wuxuu sameeyaa markaas in uu luqada isku day inuu ku hilgelayo naxwaheedii iyo sidaan si sameeytan naxwaheeda baratan waxaan baro markaas saad ma si dhahayo sababta markaas ay aanu ku fuulansa luqada marka durbida baranaysa grammar waxa lagu talagalay markaas qof luqada meel sare ka gaaray oo luqad aad iyo aad u yaqaan inuu barto marka grammarka si fiican ha u baranin kaliya hadii aad in yar ka baro hadii ay taadad baraf dhigto taxan laga qaaday markaas diyaarto xifdi ay taxan ku galeyso hadii laakiin hadii aad luqada aad baranaysa adiga marnaba grammar yani si fiican u baranin saddexaadna waxay tahay dhageysi luqada kaliya qaybta saddexaad qayb aad muhiim u ah weyn luqada sida kaliya ee lagu baran karo waa inaad dhageysataa oo aad Ingiriiska dhageysataa ka soo qaad karo inaad filimada aad maanta laga bilaabo aad daawanin film yani aadan film idil aan daawan oo ah af Soomaali ku turjuman aad daawan film Ingiriis kaliya si yani ama luqada arabto ku turjuman si ay ma aad oo la qabsato yani hadii aad YouTube ku tartan aad muuqaalo wax lagu sharaxayo aad ka raadiso in aad yani aad ku raadiso luqada Ingiriiska marka Ingiriiska dhageysiga marka waa dhageysiga waa kaliya ee luqada lagu baran karo dhageysiga sababtoo ah ilmaha yarka markuu 2 sano uu jiro ayuu markuu hal sano meelaha gaaro sidoo dhageysanayo hooyadu kalba ilmaheeda ay afka eray u soo qabasiinayso ay kalba ay yani eray u baranayo baa wax arkaysaa Soomaaliga bartay marka samee dhageysi xilli kasta Ingiriiska dhageyso daarto dad qof heesa dhageysaday
heesaha ingiriiska dhegeyso. يعني بدل لغة بدل Soomaali dad yaad luqada baranayso ku bedel waxaad arkaysaa muddo 3 bil ah muddo 2 bil ah adigoo isbedel aad u sabuuyin sameeyay oo luqadii si fiican u bartay haddaba taafraada u imaano tan aydan aad bay muhiim u tahay maalin kasta baro ereyo cusub yani ereyo cusub waxaa jiro ingiriiska ereyo isku soo laabto oo kalba yani hal ereyo waxaa arkaysaa 3 jumlado af Soomaali noqonayo marka maalin walba ay qoro ereyo ereyada ku qoran karaa markaas waxaa sameynaysaa markaas inaad tagto yani markaas suuqa aad ka soo qaadato maanta waxa u baahatay garad ingiriis waxa lagu dhahaa meel ba ku qoranaysaa markaas waa turjumanaysaa ereyo cusub ayaa maanta ereyada markaas waad xifdinaysaa marka xifdiso kaliya markaas ereyadii hadana waxaad sameynaysaa markaas in aad ku haasho bari oo qofka aad ku weydiiso oo aad garanayso wax maanta u baahatay saad ma ku wado markaas waxaad noqonaysaa qof yani ereyadiisi si fiican garanayo oo markaas ingiriis wax walba la weydiiyo si tufaayo oo markaa wax walba u baahan tahay haddaan u gudubno qodobka shanaad kaasoo ah qodobkeena u dambeeya muuqaalkeena inkastoo aan rabin muuqaalka uu saad u sii dheeraado qaybta shanaad waxay jooji turjumada tooska ah qaybtani aad iyo aad bay muhiim u tahay daawade fadlan jooji turjumada tooska ah waxaan ka wada waxayeen waa inaad ingiriiska aad soo qaadan erey Soomaali ah aad u bedelin ingiriis English translator ama English dictionary laga yaabo haatadan aad muuqaalkayga daawanayso inuu ku jiro taleefankaada laakiin iska tir wuxuu ku faa'iido ma lahan sababtoo ah laga yaabo erey ingiriisha asaga faa'iido u leeyahay laakiin inaad tas erey Soomaali soo qaato ereyada waa caadi taas ereyna ku turjumto Soomaali ku bedeltahay waa caadi laakiin inaad wax yar xaraf dheer oo kalto inaad soo qaato oo ku turjumin qiimo sababta Soomaaliga iyo luqadda aad ku hadlayso iyo luqadda kaleeto waxaa jirto wax aan islahayn oo aan iskaleyn oo aan yani isma lahayn kara loo luqad waxa bay ku kala duwan yihiin marka laga yaabo marka luqadda markaas ereyo si sax ah weeyaan ingiriiska Soomaali waxaad ku turjumayso ku hadlayso oo si sax yani u qormayso laga yaabo intaad ereyadii waan garanayaa ka soo qaadan kartaa waxaan garanayaa adiga garanayaa oo isku keenay markaas waxa la dhawaaqa inaad khalada markaas ku hadalka marka jooji inaad erey Soomaali inta soo qaato aad u bedelto markaas ingiriis jooji iska daa kaliya samee in aad bedelinaysan erey u bedelo tani waxaa dhaanto maanta inaad inta soo khaladaad aad gasho inaad door aad turjumato marka jooji turjumada tooska ah ku tilmaanayo jooji marnaba ha isticmaal inaad erey Soomaali aad bedelato ingiriis ku bedelato iska jooji marka asxaabta qaaliga mowduucan inta shanaad kaas ay nagu joogay marka hadii tahay markuu kana ka soo boqotay fadlan waxaynu ka codsanayna subscribe inaan saarto waxaan rajay doonaa muuqaalka weliga kama hadlin qaab luqad loo bato muuqaalka horiyaan ka hadlay in uu aad iyo aad ku xiiso galiyay hadii tahay markuu kana ka soo boqotay mar labaad ku subscribe saar si aan u gaarno 10 subscribers aad buu ma santahay billahi tawfiiq wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh